magacaygu waa Dr. Fatima Ismaaciil Maxamed waxaan ahay qoraaga buugga Hadima Haween. Fatima waxaa ku dhashay magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya. waxaan dhashay sanadii 1998 waxbarashadeedii dugsiga hoose dhexe sare waxaan ku qaatay magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya. sidoo kale jaamacadeedii baajka koowaad waxaan ku qaatay isla magaalada Muqdisho. baajkaygii labaadna waxaan ku qaatay isla magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya. waxaan kala bartay oo takhasus jaamacadeed aan kaga qaatay baajkaygii koowaad medical laboratory science halka baajkaygii labaadna aan qaatay human nutrition and dietitian. waxaan ahay hal abuur qoray buugga Hadima Haween. waxaan ahay qoraaga buugga Hadima Haween. Hadima Haween waa buug ka hadlaya gudniinka fircooniga aan ugu talagalay wacyigeli ahaan inaan ugu qoro bulshada Soomaaliyeed ee wax akhrisa qortana kuna akhrisa afka Soomaaliga. Hadima Haween waxa igu dhaliyay inaan qoro kadib markaan arkay dhibaatooyinka haysata haweenka Soomaaliyeed gaar ahaan magaca Hadima Haween. Hadimo waa dhibaato aan dhammaad lahayn, haweenna waa iska dumarkii. hase ahaatee buugga wuxuu ka hadlayaa dhibaatooyinka uu leeyahay gudniinka fircooniga. aad baa ugu faraxsanahay inaan qoro buuggani ee gudniinka fircooniga ka hadlaya. haddii aan in yar gudniinka fircooniga ka hadlo, gudniinka fircooniga waa dhibaato aan dhammaad lahayn, waa victim loo geysto gabdhaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. waa dhibaato sidoo kale lagula kaco haweenka, waa tacaddi aan dhammaad lahayn ee nolosha dumarka saameysay. gudniinka fircooniga waxaa lagu qeexaa inuu yahay qaniin lagu sameeyo haweenka Soomaaliyeed. hase ahaatee gudniinka fircooniga ayaa inta badan dadka aad u isticmaala. waxa igu kalifay ugu badan inaan buugga ka qoran waa sababta ay u isticmaalaan gudniinka fircooniga. markaa fiirino gudniinka fircooniga wadamada laga isticmaalo waxaa kamid ah dalkeena hooyo ee Soomaaliya oo inta badan lagu sheego inuu ku jiro dalalka ugu badan ee laga isticmaalo gudniinka fircooniga. waxaan rajeynayaa dadka badan inay yeelan doonaan aqoon ku filan si ay uga hortagaan gudniinka fircooniga. maxaa sababay gudniinka fircooniga? sidaas loo gudaa gudniinka fircooniga? waa su-aasha inta badan aad isweydiineysaan qof walba daawanaya muuqaalka. maxaa sababay gudniinka fircooniga? inta badan dadka waxay ku daraaseeyaan in uu yahay ilaalin lagu ilaalinayo gabdhaha Soomaaliyeed, laakiin gabadhani Allihii qalqay ayaa markaasi ilaalin kara oo qof bini aadan ah ma ilaalin karo. sidaas awgeeda gudniinka fircooniga waa tacaddi lagula kaco haweenka Soomaaliyeed. waxaa inta badan loo gudaa gabdhaha ku inta ay yaryar yihiin. hase ahaatee waxa aad ugu badan dadka aanan aqoonta lahayn. gudniinka fircooniga waxaa inta badan lagu sheegaa inuu yahay culture ama caado dhaqameed oo inta badan markaa dadka wareystid waxay ku leeyihiin 3 ayeeyo ama 2 ayeeyo ka hor ayaa loo soo guday. dhibaatooyinka gudniinka fircooniga uu leeyahay waxaa kamid ah waqtiga gabadha ay soo qaangaarto waxaa ku dhaci doona waxa la yiraahdo dhiigga caadada oo ereyga terminological ahaan loo yiraahdo menstrual cycle. waqtigaasi ay ku guda jirto menstrual cycle-ka gabadha waxay la kulmi doontaa xanuun aad u daran. sidoo kale gudniinka fircooniga markii gabadha lagu sameynayo ama la gudayo waxaa jira qaar u geeriyooda xogtooda inta badan aad haysaan gobolada dalka ay ka dhacday gabdho u dhintay u geeriyooday dhiig bax darteeda ee gudniinka fircooniga. gabadha markii dhiigga caadada ku dhaco waxay sameyn doontaa inuusan banaanka usoo bixin dhiigeeda ee gudaha uu noqdo infection halkaas ay ka qaado. uteruskii uu dhiigga badanaa kasoo baxayna inuu noqdo mid xirmay, xinjirihii iyo wixii wasaqdina halkaas ay ku dhex xirmatay. sidaas awgeeda waa dhibaato iyadana. hadday kasoo gudubto gabadhani la guursaday waxay la kulmi doontaa dhibaato xilliga galmada ama waqtiga ay xalaasha u tahay ninkeeda si ay nolosha la wadaagto. sidaas awgeeda badanaa gudniinka fircooniga waxaa lagu qeexaa inuu yahay kala fogaanshaha lamaanaha. waxa ugu badan ee sababa furiinkana waa gudniinka fircooniga. cilmi baaris lagu sameeyay inuu sababo furiinka badanaa because gabadha waxay nici doontaa ninka ay nolosha la wadaagi doonto waxayna dalban doontaa in la furo. waxaa kaloo jira markay kasoo gudubto xaaladaasi gabadha uur ayay qaadi doontaa hadduu alla u qadaro. dhalmada markay soo dhawaatana gabadha waxay ku dhali doontaa hadduu Allah u fududeeyo normal delivery. haddii kalena badanaa gabdhaha gudniinka fircooniga loo gudo waxay maraan qaliin ama waxa la yiraahdo C-section, cesarean section. waa qaliinka gabdhaha lagu sameeyo.
gudniinka fircooniga markaa fiirino dhibaatooyinka ugu badan ee laga dhaxlo waa mentally kani ahaan in gabdhaha maskaxdoodii isla hadal iyo waxyaabo badan ay sameeyaan. waxaa sidoo kale jira inta badan dadka ayaka og cilmina u leh gudniinka fircooniga inay ku sameeyaan gabdhahooda, taa way ka dhigan tahay kaljar ahaan ama caado dhaqameed. waxaa jiro 45 kaam ee ku yaala magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka ay ka sameeyay cilmi baaris ku saabsan gudniinka fircooniga. inta badanna waxay markaasi ku andacoodaan inuu yahay ilaalin ama badbaadin gabadha lagu badbaadinayo, lagu ilaalinayo gudniinka fircooniga, laakiin ma galo gudniinka fircooniga wax lagu ilaaliyo ama lagu badbaadiyo gabadha. buugani hadima haween dhibaatooyinka gudniinka fircooniga intii aan hadda sheegay iyo in ka badan ayuu qeexayaa. aad baa ugu faraxsanahay inaan qoro buug ka hadlayo gudniinka fircooniga. waxaan sidoo kale aad ugu faraxsanahay inaan ahay gabar Soomaali oo ugu horeysa ee buug ka qorta gudniinka fircooniga. way jiraan dad kale Soomaali ah ee buugyo kala duwan qoray, laakiin waxaan ahay shaqsiga ugu horeeyay ee Soomaali ah haddana buug ka qora gudniinka fircooniga. inkastoo ay jiraan dad kale ajnabi ah ee buug ka qoray gudniinka fircooniga, aad baa ugu faraxsanahay inaan qoro buugga cilmiga aan bartayna kugu qoro halkaas. fariinteedii ugu dambeysay ee bulshada la wadaagayo waxay tahay bulshooy gudniinka fircooniga waa dhibaato aan dhamaad lahayn. ha u gudin gabadhaada, ha u ogolaanin walaashaada in lagu sameeyo. fadlan ka taxadar gudniinka fircooniga, hana u ogolaanin in loo gudo gabar kula dhalatay ama aad dhashay. waa dhibaato inta badan aan wada ognahay. fadlan joojiya gudniinka fircooniga.